khasaaraha kooxda Al-Shabaab ku gaaray dagaalkii shalay oo maraya 100 dhimasho ah. Xog cusub ayaa laga helay khasaaraha kooxda Al-Shabaab ay kala kulmeen dagaal shalay ka dhacay deegaanka ay macawisleyda ay ku leeyihiin deegaanka Jicibow oo 30 kiiloomitir dhanka waqooyi bari kaga beegan degmada Buulaburti ee gobolka Hiiraan. Warbaahinta dowladda ayaa warisay in ciidanka xoogga dalka oo gacan ka helaya dadka deegaanka ay hareeyeen kooxdii Al-Shabaabka ahaa oo ku sugnaa goob webiga jiinkiisa ah oo doonayeen inay ka tallaabaan halkaasi oo lagu laayay sida uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maareynta degmada Buulaburti Maxamed Shiino ayaa warbaahinta u sheegay in ku dhawaad 100 ka tirsan dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ay halkaasi ay ku dileen halka qaar kalena ay isu soo dhiibeen intii hartayna ay ciidanka ku hareeraysan yihiin ayuu yiri. Warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa baahisay khasaaraha Al-Shabaab halkaasi ku gaaray iyadoo weliba ku sheegtay 200 oo ka tirsan kooxdaasi. Kooxda Al-Shabaab ayaa damacoodu ahaa inay kala gooyaan labada magaalo ee Beledweyne iyo Buulaburti sida ay xog ku bixiyeen saraakiisha ciidamada dowladda. Sida wararku ay sheegayaan, maamulka deegaanka ayaa ka war helay in Al-Shabaab badan oo doomo wata halkaasi ay soo saldhigteen, waxaana durbadiiba halkaasi u ruuqaansaday ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya macawisleyda. Ciidanka xoogga dalka ayaa sidoo kale gurmad xoojin ah u diray kuwaasi oo kooxda ku hareeriyay deegaanka Jicibow kadibna uu dagaal culus oo ka dhacay. Dagaalkii shalay subax ka bilowday ayaa gaaray ilaa iyo xalay maqribkii, waxaana la sheegay in cagta la mariyay shabaabkii doonayay inay kala gooyaan magaalooyinka Beledweyne iyo Buulaburti. Khasaaraha kooxda Al-Shabaab ku gaaray halkaasi ayaa noqonaya kii ugu xumaa abida oo ay hal goob ay kala kulmaan. Geesta kalena ciidan xoog leh oo ka socda beelaha Mudullood ayaa ka ambabaxay gudaha iyo daafaha magaalada Muqdisho, kuwaasi oo ku wajahan deegaanada ay Al-Shabaab ay ka joogaan gobollada Hirshabeelle iyo Galmudug. Saraakiisha iyo mas'uuliyiinta hogaaminaysay ciidankaasi oo warbaahinta kula hadlay duuleedka magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay qorsheynayaan inay maalmo gudahooda lagaga xureynayo gebi ahaanba deegaanada ay kooxdu ka joogto dhulka Hirshabeelle iyo Galmudug. Ciidankan la suguutiyay ayaa wata hub iyo gaadiid aad u badan, waxaana ka sii horeeyay ciidan kale oo maalmihii la soo dhaafay la isku keenayay degmada Cadale. Beelaha Mudullood ayaa wada abaabulkoodii ugu cuslaa oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab, maadaama inta badan gobolka Hiiraan iyo qaybo ka mid ah Galguduud kacdoon shacab looga xoreeyay kooxda Al-Shabaab. Howlgalladan ayaa lagu wadaa inay ka bilowdaan dhulka ay Al-Shabaab ay ka joogaan gobolka Shabeellaha Dhexe. Ila soco